habka ugu degdega badan ama ugu sahlan oo account-kaada lagu qarxiyo ma taqaanaa? Habka ugu degdega badan oo account-kaada lagu qarxiyo waa inaad gees-garaysid adigoon ogeyn meel aad u socotid. Lacag baa aragtay, waxaas la leeyahay waa buy, buy baa iskaga gashay. Macnaha filim baad ku gashay. Dhibkaas hadduu ku haysto xal baan ku hayaa. Hadda ka dambe markaad talagelaysid, meel ku qor lacagta iyo waxaad dareemaysid iyo istiraatiijiga aad isticmaalaysid waxay sheegayso. ICT baa isticmaalaysaa, everything diyaar weeye. 4 hour ka soo bilowday, 15 minutes aad ka gashay. Waa inaad gees ku qortaa. So marka berri markay macnaha aad trade kala galaysid, hadduu midkan khasaare ku dhammaado oo news soo baxayay, CBI aad ka trade gareynaysay, non-farm payroll NFP aad ka trade gareynaysay, loss ku dhammaado, account aad kaga gubto sooma? Okay, maalinka dambe account aad soo qaadato ama demo aad soo qaadato ama lacag yar meel gashatid, sidaas ha ku trade gareynin tii hore wax ka beddel. Taas waa ku khasaartay. Macnaha ha noqonin doofaar. Doofaarka ficil la'aan loo cadaabaa. Meesha account iyo rule-ka mar account aad ku qarxisay, ha ku noqonin. Iska beddel macnaha nafsiyan. Sometimes waxaa dhici karto istiraatiiji xumo kuma hayso, balse waxaa ku haya waxaa weeye mentally baad u kaykalaysan tahay. Adigoo dhammaalo macnaha waxaa weeye maskaxiyan baad u fadhinin. Inaad trade yaal lagaa gubtay. Yar maalin waxaa jirta maalin la soo hadlay oo dana cabaar markaan yara sheekaysan wuxuu yiri niyow waan ku soo wici doonaa. Waxaan ku yiri nin maxaa jiro? Wuxuu yiri xoogaa stress baa i hayo. Account aan iska gubay. Marka isbuuc baan qaadan rabaa buu yiri. Ma arkaysaa macnaha qofkaas meeshuu ka duulayo xoogaa wuxuu isleeyahay isdaawee. Cilaaj buu u socdaa. Marka ani waxaan kuu diidayaa inaa maalin walba ama bil walba cilaaj aadid. Cilaajkan aadid iska jooji. Noloshaada wax ku soo kordhi. Aslan bana ha yeelin trade aan kuu qornayn ama aan raacin ruleskaada. Hadday ruleskaada 10 yihiin, 10ka trade-ku waa inuu buuxiyaa. Aan ruleskayga waa new indicators ugu yaraan waa 4 indicator weeye. Waa baseline trading zone sheegayso, kii confirm gareynaya trade-ka iyo macnaha kii gal idhahayay iyo kii kale oo ku raacayo dhahay waa saxan yahay gal. Kadibna volume-ka suuqa kii sheegay. Saddexdaas markay israacdo, ayadana zone la joogin ma trade gareeyo. Zone kasta haddii la joogo kuwaasoon israacin oo sheegin ma trade gareeyo. You see, markaa rule leedahay wax ku maamulayo ku celinaa leedahay. Trade walbo boodo kama daba boodis. Waxaad noqonaysaa macnaha mid qof qalbiyan u degan. Trade-ku qaadanayana og 70%, 80% in trade-kan ku guuleysanayo. Markays, marka haddii istiraatiijiga ay tahay 50%, 10 trade aa qaadatay, 5 baa weyn ku dhacday, 5na waa loss, still 50-50. Macnaha qofkan bishaan trade gareyn iyo adiga wax isma dhaamtiin. Just break even baad. Marka break even waa inaad ka baxdaa. Xataa haddaa 55% aad gaari kartid. Tusaale ahaan 10 baad qaadatay, 6 trade bas aad TP kugu dhacday, 4na waxay kaa noqotay stop loss kaaga dhaceen. Still macnaha depend macnaha money management-ka siduu ahaa profitable baad tahay. Marka waxaan kaa rabaa aniga inaad noqoto macnaha step by step. Hal mar cirkaad kuma dhahay aniga. Step by step. Aniga step by step aan ku soo koray. Waxaan isku dayay mar walbo 0.25 inaan account-kayga ku daro. Inaan 1% ku daro bish. Bisha kale 3% ku daro. Bisha kale macnaha koraan u soconaysaa. Macnaha waa inaad wixii shaqaalaadka shalay aad samaysay maanta ma samaynaysid. Bishaan haddaa hal rule jebisay, bish soo socota waa inaad rule aslan baa jebin. Haddii bishaan 3 rule aad jebisay, bish soo socota waa inaad 2 jebisaa. Bisha ku xigta waa inaad 1 jebisaa. Si macnaha aad maskaxiyan isku dhisto u dhismatid. Anigu waan ogahay 3 account, 4 account baa wada gubteen. Runta la isku sheego. Kadibna waxaa lagu noqdaa Proform. Proform-kan they don't care you. Waxay kaa rabaan waa shilinka. War shilinkaan badbaadsan kartaa. Oo wax dhisan oo proof garaysan inta hagaagsatid suuq ma lagi kartaa. That is the mentality. Waqti qaado, ha degdegan suuqa meel ma aadayo, wax dhiso, isku day. Dadka macnaha aad aragtid inay wax dhisteen, qaabka wax u dhisteen la xiriir, wax isku raadso. Haddaad istiraatiiji ku shaqaynayso, make sure istiraatiijigaas inaad aslan ba waxba ka beddelin. Haddaad macnaha jacbur isticmaalaysid, jacburka jooji. Maxaa jacbur u isticmaalaysaa?